qaada lacagta dalkiisa Ruushka. markii ay soo baxeen xayiraadaha iyo cunaqabataynta reer galbeedka ay ku soo rogeen dalka Ruushka, madaxweyne Putin waxa uu bangiyadiisa ku amray inaysan doolarka aysan u bixin karin wax ka badan 10,000 oo doolar shakhsi walba. tusaale ahaan haddii bangiyada Ruushka ay ku taala lacag gaaraysa 1 milyan oo doolar oo aad doonayso inaad la baxdo 100,000 laguma ogolaanayo kaliya waxa lagu ogol yahay inaad la baxdo oo kaliya 10,000 oo doolarka Mareykanka. inta hartayna waxaad kula baxaysaa lacagta dawladda Ruushka. sidoo kale madaxweyne Putin waxa uu faray bangiyada inaysan doolar ahaan aysan u sarrifi kareynin qof kasta haddii uu la yimaado lacagta dawladdiisa, sidoo kalena haddii ay doonayaan in looga bedelo lacagta doolarka. tusaale ahaan haddii aad haysato malaayiin lacagta rubalka ee dawladda Ruushka oo aad bangiyada aad uga baahatid in doolar ahaan ay kugu sarrifaan, iyadana lama ogolaanin oo waa la mamnuucay. dhinaca kale ciidamada booliiska ee dawladda Ruushka ayaa bilaabay olole ballaaran oo lagu soo qabanaya shakhsiyaadka suuqyada madow ku sarrifaya lacagta doolarka ee Mareykanka. waxaa kaloo ay soo qabashadan ay ka bilaabeen sida la sheegay shakhsiyaadka guryaha ku haysta ama ku kaysada lacagta doolarka Mareykanka, taasi oo qayb ka ah qorshaha madaxweyne Putin uu dejiyo islamarkaana uu ku doonayo inuu dhulka uu ku dhigo lacagta doolarka korna ugu soo qaado lacagta Ruushka. sidoo kale qorshaha cajiibka ee Putin uu ciyaaray waxaa ka mid ah inuu hoos u dhigay alaabaha iyo cuntooyinka Ruushka ugu imaan jiray dibadda, sidoo kalena waxa uu gaarsiiyay ilaa 30%. waxyaabaha qiimahooda hoos loo dhigay waxaa ka mid ah shaaxa 30%, maadaama hoos loo dhigay waxa inta badan uu kaga imaan jiray dalka Sri Lanka waxaana uu ku soo iibsan jiray doolarka Mareykanka. sidoo kale waxaa ka mid ah sida la sheegay waxyaabaha uu dibadda ka keensan jiray Ruushka, balse hadda uu joojiyo taleefanada iPhone-ka iyo laptop-yada kuwaasoo iyagana uu ku soo iibsan jiray lacagta doolarka. dhinaca kale marka la eega dhaqaalaha dawladda Ruushka waxa uu galayaa xilli isbeddel weyn lagu sameynayo si uu ula qabsado saameynta cunaqabataynta culus ee Mareykanka iyo xulafadiisa ay saareen xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Moscow. sidaasi waxaa tiri Elvira Napoleon, madaxa bangiyada dhexe ee dalkaasi, sida uu baahiyay telefishinka RT ee dalka Ruushka. dhaqaalaheenna waxa uu galayaa isbeddel aad u adag qaab dhismeedka kaasoo la xiriira cunaqabataynta la saaray. sida aan sheegnay, cunaqabataynta waxay inta badan saamaysay suuqyada maaliyadda, laakiin hadda waxa ay bilaabi doonaan inay sii kordhiyaan si uu u saameeyo dhaqaalaha dalkeenna, ayay tiri haweenaydan. sida laga soo xigtay saraakiil kale oo ka tirsan dawladda Ruushka weli waxa ay leedahay keedka lagu taageero dhaqaalaha, laakiin ma awoodi doonaan in ay sii ambaqaadaan muddo dheer, gaar ahaana markii ku dhowaad kala bar keedkooda maaliyadeed qiyaastii gaaraya 300 oo bilyan lagu xayiray dibadda cunaqabataynta darteed. muddadii dhaqaalaheennu ay ku noolaan karayeen keedka waa uu dhammaaday. haddana bilowga rubicii saddexaad ee sanad maaliyadeedkeenna waxaan geli doonnaa isbeddel qaab dhismeed iyo raadinta qaabab cusub, ayay hadalkeeda sii raacisa haweeneydan madaxda ka ah bangiyada dalkaasi Ruushka. yeelkadeeda waxay ammaantay tallaabooyinka Ruushka hore u soo bandhigay si uu u taageero dhaqaalaha iyadoo ay jirta cunaqabataynta, taasoo ku jirta u beddelashada sida la sheegay nidaamkeeda maaliyadeed ee SBFS loo yaqaano, kadib markii dalka laga ceeriyay hanaankii bangiyada lacagaha isugu kala dirsan jireen ee caalamiga ah ee Swift code-ka bishii Maarso. sidaas oo ay tahayna madaxweynaha dawladda Ruushka qorshe halis ayuu u degay madaxweynaha dawladda Mareykanka Joe Biden si uu lacagtiisa dhulka u dhigo. haweenaydan waxaa kaloo ay carabka ay ku adkaysay in cunaqabataynta ay Ruushka ay ka jartay inta badan dhaqaalihii kaydka ahaa sida doolarka Mareykanka iyo lacagta Yuurooda, taasi oo qasab ka dhigtay in Ruushka iyo sidoo kale dadka jaalka la ay isla qaataan in lacag bixinta loo adeegsado lacagaha qaranka Ruushka iyo dalalkaas, balse xaaladdu ma sahlana oo la qabsi adag ayay u baahan tahay sida ay qiratay haweenaydan. maxaa kaaga baxay macluumaadkan? qaybta hoose aragtidaada ku reeb, aad baad u mahadsantahay. markan waxaynu eegaynaa macluumaadyadii ugu dambeeyey saameynta duqeymaha ka dhacay marinka Gaza. telefishinka Al Jazeera ayaa shaaca ka qaadaya in xalay duqeymo xooggan ay ka dhaceen dhanka koonfureed ee magaalada Gaza, sidoo kalena waa berigii saaka ayaa duqeymo xooggan ay dhaceen. ilaa barqanimadii maanta ayaa la baadigoobayay khasaaraha guud ee duqeymahaasi. diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaana